wad salaamantihiin meel kastoo daafaha caalamka aad ka joogtiin. qisada filimka maanta waa filimka Sow 2006. fadlan intaynan gudagelin sheekada filimka subscribe channelkeena si aad la socotid qaybaha soo socda. haddii aadan daawan qaybtii koowaadna waa ka linkigu saaran kominka u sarreeya, qaybtanna waa qaybtii labaad. qisada filimkuna waxay ku bilaabmaysaa Troy oo ku xidhan qolka ciqaabta, fariintiisuna ay tahay: hello Troy, waxaan rabaa inaad ciyaarta ciyaartan ka dhici doonta qol aan aad uga weyneyn qolkaad ku qaadatay noloshaada inta badan. waa qolkii xabsigee, inkastoo ay jiraan faa'iidooyin iyo mudnaan la siiyo qofku markuu dhasho, balse adigu xabsiga waxaad ku noqotay marar badan. waxaan eegi doonaa ilaa intaad diyaar u tahay inaad jabiso silsiladahan kugu xidhan. nolosha ama geeridu waa doorashadaada. nasiib xumo intaanu xoroobin Troy, miinadii ayaa ku qaraxday. booliska iyo dembibaadhayaashuna dhacdada kadib ayay soo gaadheen goobtii. tani waa Alison Carey, waa dembibaadhe, waxaana iyada oo gurigooda joogto dhegaysanaysay fariintii Troy si ay u hesho qofka codkiisii cidduu yahay. balse intaana wada fahmin ayay muuqaalkeeda ka arkaysaa tv-ga. markay istidhi hubina, dilaaga ayaa halka dambe kaga imi. waxay soo toosaysaa iyada oo mishiin bir ah feedhaa kaga xidhan yahay. fariinta xujadeeda ee ciyaarta dhimashadu waxay odhanaysaa: hello Carey, waxaan rabaa inaan ciyaaro ilaa imika. qalabkanaad xidhan tahay wuxuu ku xidhan yahay qafiska feedhahaaga. markay cajaradina dhammaato waxaad helaysaa 1 daqiiqo si aad u hesho wadda aad uga baxdo. dhalada hortaada taalla waxaa ku jira furiyo aad iskaga furi lahayd birtan kugu xidhan. kuna dhaqso, haddii kale aashitada way mili doontaa furaha. qof kasta adiga ayaa ugu warran marxaladda aad ku jirtid. Carey oo isku dayday in la soo baxdo furaha, nasiib xumo iyadana wakhtiga ayaa ka dhammaaday oo feedhaheeda ayuu labo kala qaybiyey mashiinkii. dhakhtaraddan magaceeda waa Lane. markay dhammaysatay shaqadeeda isbitaalka iyadoo qolka labiska ku jirta, waxaa soo weeraraysaa Amanda waa gabadhi aan kusoo daawanay qaybtii koowaad ee uu dilaagu afka ugu xidhay mashiinka. Amanda ayaa intay soo xusay waxay ku soo qaadatay wheelchair. dakhtaraddii waxay soo toostay iyadoo xidhxidhan, waxay ku qaylinaysay in la caawiyo, balse Amanda ayaa u sheegtay inay aamusto. waxayna u keentay Jigsaw oo ah dilaagii. Jigsaw ayaana u sheegay inay ka mid tahay ciyaarta. qoortana waxa ugu xidhay qori shan dhuumood leh. waxaana u sheegay haddii uu ku guulaystay qalliinkiisa oo wadnihiisu istaago in 5 rasaasood ay qoorta jari doonaan. sidoo kale haddii ay isku dayday inay qolkan ka baxdo, mashiinku waxa ku brogramsan inay ku qarxo. ninkan magaciisu waa Jeff, waa dhakhtaradda Lane ninkeedii hore ay kala tegeen. waxaanu sabab u ahaa kala tegistooda ilmo yar oo 8 jir ah oo ay dhaleen oo shil baabuur ku dhintay. waxaana soo afduubtay dilaaga, waxaanu ku jiraa saxaarad yar. isaguna wuxuu ka mid yahay ciyaarta dhimashada iyo nolosha. fariintiisa koowaad waxay odhanaysaa: hello Jeff, dhowrkii sanne la soo dhaafay waxaad ratay aargoosi aad ka aargudato darawalkii sakhraansanaa ee dilay wiilkaaga. waa hubaal waad la yaabtay go'aankii ay maxkamaddu ku sii daysay dembiilaha. maantase adiga ayaa maxkamad lagu soo taagay. si aad uga baxdo meesha aad joogto waa inaad la kulantaa imtixaano xiriir ah. marka imtixaanada dhammaysatid waxaan kuu ballan qaadayaa inaad la kulantid ninkii ka dambeeyey dhimashadii wiilkaaga. ma cafiyi kartaa? si kastaba ha ahaatee waxaa fiican inaad degdegto. 2 saacadood gudahood albaabada ayaa xidhmi doonaa oo meeshan waxay noqon doontaa qabrigaaga. tani waa waxaad sugaysay Jeffow. ciyaartu ha bilaamato. waxa uu soo galay qolkii koowaad oo ah qol aad u qabow, waxaana ku xidhan gabadh. fariinta gabadhanna waxay odhanaysaa: ku soo dhowow imtixaankaaga koowaad. magaceedu waa Donica Scott, oo markhaatiga keliya ee arkayay markii wiilkaaga gaadhigu jiidhayay. haddii aanay maxkamadda ka cabsan, wiilkaaga cadaalad ayuu heli lahaa. iminka adiga oo keliya ayaa badbaadin karaa intaanu dhiman qabowga. furaha ka fur lahaana waa ka hoos yaala birta gidaarka amba birta derbiga. balse Jeff ma uu caawin ee wuxuu daawanayay ilaa inta uu qabowgu dilayo. Jeff wuxuu sii watay socodkiisii, waxaana u galay qolkii labaad. waa qol uu ku dhex samaysan yahay god uu ku dhex xidhan yahay xaakimkii maxkamaddu. fariintiisuna waxay odhanaysaa xaakimka sidan: Jeff, markii xaakimkii dacwaddaada guddoominayey oo si fudud u fasaxay gacanku dhiglaha wiilkaaga dilay, naftaada dhaawacii soo gaadhay kama soo kaban. hadda waxaad awood u leedahay inaad naftiisa toos ugu xukunto cadaabta, ama waad cafiyi karaysaa. furaha isaga xorayn doonaa wuxuu ku qarsan yahay carruusadda wiilkaaga. waa inaad dab ku shidaa carruusadda, waxaana soo hadhay keliya
furaha. sidoo kale waxaad u soo dhowaan doontaa ninkii sida rasmiga ah uga dambeeyey dhimashada wiilkaaga. jeef gudaha ayaa u galay waanu badbaadiyey qaadigii. dhanka kale dhakhtarad leyn waxay bilowday qalliin dhanka maskaxda ah, welina wadnihiisa ma istaagin. jigsow jeef wuxuu soo galay qolkii saddexaad ee imtixaankiisa, waxaana ku xidhan tomedy oo ah arday 27 jir ah oo barta caafimaadka. tomedy mashiinkana ku xidhan yahay jidhkiisa ayaa u muroojinayaa sida dharka oo kale haddii aan la badbaadin. furuhuna waxaa ku dhex jira qafiskaas oo wakhtigu intaanu ka dhicin waa inu badbaadiyaa. xaakimkii maxkamadda oo isku dayay inuu mashiinka ka furfuro ayaa rasaas ku rakabneed mashiinka ay ku dhacday. ammaanda ayaa iyadoona heshay infiloobkii fariinteeda, waxaana markii ay furtay ay ka heshay weedha ah inay iyaduna nafteeda badbaadiso. ammaanda hadda iyadu quus ayay taagan tahay, mana jirto sabab ay u ilaalisaa jigsow. waxay soo aadaysaa dhankii jigsow waxayna weydiinaysaa sababta u khiyaameeyey, waxaana ugu jawaabayaa inay tahay qayb ciyaarta ka mid ah. ammaanda waxay la soo baxaysaa booskaaladeedii, waxayna rabtaa in iyadoo arrimiso ciyaarta. jeef oo weli imtixaankiisii ku jira ayaa wuxuu helaya sanduuq ay ku jiraan fure, booskaalad iyo fariin ah albaabka fur jeefow. jeef oo foojigin ayaa wuxuu qolka u soo gelayaa gudaha. leyn oo islahayd qolka ka bax ayaa waxaa dhabar ka sii tooganaysaa ammaanda. ammaandina waxay isku arkisay in la khiyaameeyey. jeef ayaa isaguna tooganayaa ammaanda. ugu dambayn jeef wuxuu ka hor yimi jigsow, waa maskaxdii ka dambaysay ciyaartan dhimashada. jigsow ayaana hadalka bilaabay, waxuu ku yidhi hambaliyo waad soo gudubtay, waxaanu u sheegay inaanu dili karin isagoo dholo caddaynaya. balse jeef waa uu fududaaday, xanaaqiisana waa xakamayn kari waayey oo mishaartii ayaa qoorta kaga jaray jigsow. jigsowna cajalkii u dambeeyey ayaa u sii daaray. fariinta ku duuban cajalkuna waxay ahayd sidan: halow jeef, waxaan cajaladan u sameeyey nidaamka caymiska oo kale. haddii aad rabto iyo haddii aad dhegaysanaysaba waa wakhtigii la ururin lahaa runta. waxaan ahaa imtixaankaagu dambeeye jeef, waad guuldarraysatay. waxaan kuu sheegay in aanad dili karin, balse kuma sheegin sababta. jawaabtu waa sahlan tahay. anigu waxaan ahay qofka ka mas-uulka ah dhimashadii wiilkaaga. sidoo kale waxaan ahay qofka keliya ee garanaya halka inantaada yari joogto. waxay ku jirtaa qol hawadu ku yar tahay. haddii aad rabtid inay badbaado waa inaad ciyaartaa ciyaar kale. ugu dambayntii jigsow wadnaha ayaa istaagay. jeefna ma ogeen in mashiinka quriga ee xaaskiisa qoortiisa sudan uu la shaqaynayey wadnaha dilaaga. mashiinkii oo is-agtifgareeyey waxaanu madaxeedii ka dhigay mid ku masaxma derbiga. qaybtii labaad ee filimkan cabsida iyo dhiigga badnaana sidaas ayaa ku dhammaaday. waa inoo qayb kale oo xiiso leh. hana ilaabin inaad muuqaalkan laag saarto, sidoo kale sabskraib channelka tidhaahdid si aad ula socotid qaybaha dambe ee soo socda.